qofkaad arkaysaan waa Sayid Cali Macalin Daawud ninkii xaaskiisa gubay oo maanta cadaaladda lagu wareejiyay macnaheedu hay'adaha amniga gaar ahaan hay'adda nabad sugidda ayaa iska wareejisay ninkan oo markii hore ay ku haysay su'aal weydiino iyo faham guud inay ka qaadato waxa ku kalifay in uu afadiisa gubo waxaa ninkan oo lagu hayay xarun gaar ah oo ay maamusho hay'adda sirdoonka qaranka ama sirdoonka dalka maanta ay ka soo saartay xaruntaasi isaga oo la geynayo xilligan aan idinla hadlayo xarun gaar ah oo booliisku gacanta ku hayo kadibna booliiska ayay tahay cidda ay mas'uuliyadda ka saaran tahay in ay ninkan u gudbiyaan arrintiisa maxkamadda eedeysanaha oo gacmaha dhaawac ka qabay ayaa helay gargaar caafimaad waxaana hay'adda nabad sugidda ay ka dhammaysatay wax kasta oo ay ahayd inay ka ogaato kiiskiisa adduunka horumaray waa sida ay sameeyaan wax aan hay'ad sirdoon soo marin marka hore la iskala mid fududaado lagumana degdego tan waxay keentay in dad badan ay aad u qeyliyaan berihii dambe oo ay yiraahdaan aaway ninkii ugu dambeyn maanta ayaa laga soo gabagaboobay inkastoo uu shalay qorshaha ahaa in ninkan cadaaladda la horgeeyay ama maxkamadda balse isla maantaba booliiska ayaa qorsheynaya ninkan inay ku wareejiyaan laamaha ay quseyso ee garsoorka dalka kuwaas oo hadda iyo wixii ka dambeeya bilaabaya broseska ama dardargelinta sidii maxkamad loo soo hor istaajin lahaa dembiga uu mudan yahay ciqaabtiisana lagu fulin lahaa eedeysanahan ayaa xaaskiisa nafta dhaafiyey welina lama aasin iyada oo weliba markaa uur lahayd shalay oo u dambeysay qoyska marxumadda ayaa hadlay waxayna aad u codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horkeeno dadka nala socday horey ayaan ugu sheegnay kiiska inuu soo dhammaaday ninkan xaalkiisana uu dhinac u dhacay mar kale waxaa nasiib u yeelateen inaa warkii aan sheegnay oo sugan alcadayntiisii halkan ka aragtaan si kastaba waxaa la aaminsan yahay in cadaaladdu ay ku dambeyn doonto xaqa isla markaana ninkan uu noqon doono nin lagu fuliyo falkii uu geystay ciqaabtiisa oo waalidku ay codsadeen inuu noqdo keliya dil taas oo dad badanna ay u arkaan inay tahay maslaxadda keliya ee hadda hortaalla dowladda iyo dadka Soomaaliyeed si xal loogu helo albaabka uu ninkan furay oo tan iyo hadda iska socda Yeah. Hello, Mr. Yeah. Hello, Mr.